xoolihii ayaa leeday oo beerihii ayaa biyihii waayey dadkii webiga Jubbaya Shabeelle jiinkiisa ku noolaana isha ayay la raaceen webigii oo sii gudhaya raacatadii Soomaaliyeedna waxay ka tallaabeen seerayaasha oomaska ah iyagoo beegsanaya halka baadka iyo biyuhu ka xigaan dhulkii dooganaa ayaa doorsoomay oo dhirtii arlada Soomaaliyeed ayaaba caleemihii daadisay qoraxdiina waxay soo daysay kulayl daran ilaa dhulkiiba ahaaday mid oomas iyo abaar ah abaartii 2011 Soomaaliya ka dhacday waxay ahayd dhibaato weyn oo ina soo martay tabaala adduun ayaana hesho lugteenu iyadoon talaabsan karayn dadkii Turkigaana taageero tisqaad iyo haddaan wax tiigsan karnaa tamar iyo lixaad haddaan tacab helay kuwii tolnimo waxii taray iyo dadkii Turkiga taariikhdu miyay hilmaami kartaa taariikhdu waxay mara ka tahay in xilli ka mid ah xilliyada wareega ee xasuusta badan ay u soo gurmatay xidigta cas walaasheedu waa xidigta buluuga maxaa yeelay waxaa jira arxan iyo xiriir iskaashi oo fac weyn oo ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkaasi waa mid soo jireen ah oo gaaraya boqolaal sanadood ilaa qarnigii 16aad 1532 dagaaladii Axmed Gurey iyo boqortooyadii Amxaarada Turkiga oo waaga ahaa boqortooyadii Cismaaniyiintu waxa ay u soo gurmadeen taageero ballaaran oo gacan iyo hiil iyo hooba lehna ay siiyeen Axmed Gurey iyagoo u soo gurmanaya xadaaradihii waaga jiray qayb weyn ka ahaa Turkiga Cismaaniyiintana waaga ahaa quwadihii dunida kulloolamiyo kuwa ugu weyn ka mid ahaa joogitaan la taaban karo oo waxgal ah ayay ku lahaayeen geyiga Soomaalida iyo geeska Afrika guud ahaanba khaasatan Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya waxay lahaayeen joogitaan rasmi ah iyagoo magaalada Berbera nidaamka biyo-gelinta oo ilaa hadda la isticmaalo iyagu sameeyay jeelka weyn ee Berbera iyagu sameeyay masaajidka weyn ee jaamaca Cismaaniyiintu waqtiga ay sameeyeen sidoo kale Saylac iyo dhulka raadad bay kaga tageen boqortooyada Cismaaniyiintu markii ay geeska Afrika iyo dhulka Soomaalida ay joogeen qarnigii tagay markii ugu horeysay ee safaarad Soomaaliyeed laga furay magaalada Ankara 1976 halka Turkiguna ay safaarad Muqdisho ka furteen 1979 wixii xilliga ka dambeeyay labada dal waxay lahaayeen xiriir saaxiibtinimo oo aad u dhow xiriir waxa naga dhaxeeyay oo safaarad ay uga furneed halkan anagana safaarad nooga furneed Ankara dawladii dhexe waqtigii ay jirtay oo dalka markii gumaysiga 60kii kadib xorriyadda aan qaadanay oo dawladnimadeeni aan yagleelanay kadib xiriir waxa noo bilaabmay oo iyagana dawladnimada casriga ah waqtigaas ay yagleesheen waxa noo bilaabmay xiriirkaas waxa naga dhaxeyn jiray xiriir saaxiibtinimo iyo walaaltinimo oo xaqiiqdii waqtiyadaas madaxdeeni ay booqan jireen Ankara kuwada halka ay imaan jireen waqtigaasna waxa naga dhaxeeyay xiriir aad u fiican oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo leh xiriirka cusub dib u bilowday wixii ka dambeeyay maaragta dawladihii dambe marka burburka ka soo kabanay kadib dawladihii ku meel gaarka ahaa oo dalkan u dhismay ayuu xiriirkii dambe hadana bilowday waxa uu aad u sii xoogaystay 2011 markii madaxweyne Erdogan oo waqtigaas ah ra'iisul wasaare oo dalka yimid 19 August 2011 ayay ahayd markii uu gegida caalamiga ah ee Muqdisho uu ka soo degay mudane Rajab Tayyip Erdogan oo kalka ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga booqashadaasi waxay noqotay mid indhaha caalamka ku soo jeedisay Soomaaliya oo xilliga ay ka jiraan abaaro iyo macluul daran Erdoganna waxa uu noqday mas'uulkii ugu heerka sareeyay ee soo booqda Soomaaliya tan iyo burburkii booqashadaas oo gundhigu noqotay xiriirka casriga ah ee u dhaxeeya labada dal iyadoo daahfurtay xiriirka iskaashiga oo dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga oo dhex mara labada dal 2011 waxay activate gareysay xiriirkii soo jireenka ahaa oo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Turkiga iyo shacabka Turkiga ka dhaxeeyay ayay daboolka ka qaaday maalinkaas uu soo degayay Erdogan waxay la mid tahay maalinkii Axmed Gurey Turkiga u soo gurmaday
oo lala dagaalamayay maxaa la dhihi jiray dowladihii markaas cadowga ku ahaa taas oo u dhiganta in maalintaas oo kale ka mid ah aynan soo maraynin marka Soomaaliya oo god ku sii dhacaysa oo shabaab iyo gaajo iyo problem dilooday adduunkuna uu ka jeestay oo u arkaayo dowlad iyo shacab fashilmay ayuu Erdogan wuxuu yiri ma aynan fashilmin dad jiro waaye annaga garab taagan ciddii soo garab istaagaysa. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız hem Somali Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde kardeşliği tekrar canlandırmak hem dünya kamuoyunun dikkatini Somali'nin üzerine çekmek hem de ülkemizin Somali kardeşliğine yapabileceği destekleri, yardımları ulaştırmak için büyük bir heyetle Mogadishu'ya geliyor 2011 yılının Ağustos ayında. Tabii yanında büyük bir sanatçı, iş adamı ve devlet adamı heyetiyle birlikte geliyor. Turkiga ayaa qayb ka noqday dadaaladii gargaarka ee dadkii abaaruhu saameeyeen iyaga oo bilaabay ololaha gargaarka bini'aadannimada ee Soomaaliya taasoo qayb ka ah diblomaasiyadda firfircoon iyo gargaarka bini'aadannimo ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga. Dowladdu waxay abaabushay dadka Turkiga waxay ururiyeen dhaqaale aad u badan. Sanadkii 2011 deeqaha shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Turkigu ugu deeqeen Soomaaliya waxay gaadhayeen 365 milyan halka dowladda Turkiguna ay ku deeqday 49 milyan oo dollar sanadkii 2011. Wakaaladda iskaashiga iyo isuduwidda Turkiga ee TİKA ayaa soo gabagabaysay in ka badan 800 oo mashaariic oo iskaashi horumarineed ah oo ay ka fulisay Soomaaliya. caafimaadku wuxuu ahaa aag si weyn diiradda loo saaray 85 milyan oo dollar oo Maraykan ah ayaa lagu kharash gareeyay dayactirka cisbitaalka Digfaar ee Muqdisho oo loogu magac daray Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi Baarista ee Soomaaliya Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale bixisa socodsiinta 2 cisbitaal oo ku yaala caasimadda oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir Turki ah. Cisbitaalka Digfaar oo la daahfuray sanadkii 2014 waxa uu leeyahay 250 sariir oo bukaanka loogu talagalay iyo 6 saalada qalliinka. Waxa ka howlgala 850 shaqaale caafimaad ah. Guud ahaanba dadka ka faa'iideystay adeegga caafimaad ee cisbitaalka Digfaar waxay gaadhayaan ilaa 1,650,387 bukaan. Waxaana lagu sameeyay 28,567 qalliin oo kala duwan. Sağlık alanında sağlık tabii iki yönlü. Bir taraftan bir kapasite inşası gerektiren bir boyutu var. Diğer taraftan da günlük sağlık hizmetlerinin sunulması, ulaştırılması insanlara. Ve o kapasitenin Mogadishu'da, Somali'de oluşturulması gerekiyor. Aksi halde çok basit nedenlerle insanlar Mogadishu'nun dışına çıkıp yani daha Somali'nin dışında tedavi imkanlarını araştırıyorlar. Burada çok modern bir hastane açtık. Bu hastanenin 2 amacı var. Bir tanesi Somali kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmak. Diğer taraftan da Somali'de ihtiyaç duyulan sağlık personelini yetiştirmek. Bunlar nelerdir? Ara sağlık elemanlarıdır, uzmanlaşmış doktorlardır. Bu konuda da programımız var. Diğer taraftan ara sağlık elemanı yetiştirilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitemiz Türkiye'de burada bir meslek yüksekokulu açtı. 2021 itibariyle de meslek yüksekokulu fakülteye döndü. Diğer taraftan ilk 2021 yılında bu sene yazın ilk uzmanlaşmış doktorlarımızı mezun ettik hastanemizden.
Bunlar artık en sofistike ameliyatları Somali'de yapacak nitelikte insanlardır. dhanka waxbarashadana hay-adaha dawliga ah ee Turkiga iyo ururada samafalku waxay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare si loo qaabeeyo nidaamka waxbarashada dalka. dugsiyo cusub ayaa la dhisay, kuwa kalena waa la dayactiray si kor loogu qaado tayada xarumaha tacliinta sare ee Soomaaliya. tiika waxay ku taageertay dhowr jaamacadood iyo dugsiyo ka shaqeeya tacliinta sare, qalab waxbarasho iyo tashiilaad. Turkiga ayaa sidoo kale Soomaaliya ka hirgeliyay xarumo xirfadeed oo lagu tababarayo dhalinyarada laguna qalabeeyo qalab lagama maarmaan ah. Soomaali badan baa waxbarasho u tagta dhinacyada kala duwan ee dawladda ayaa waxbarasho loogu diraa, ama amniga ha noqoto ama dhinacyada kale ee caafimaadka ha noqoto, engineering ha noqoto. marka dhalinyaro Soomaaliyeed oo kumaankum ah ayaa wax ku barta maanta Turkiga. dhalinyaro ila mid ah oo dalka Turkiga wax ku soo baratay waxay joogaan hay'adaha dawliga ah, kuwa private ka ama gaarka loo leeyahay, ganacsiyada magaalada ka furan. saameynta ay ku leeyihiin kobaca iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee bulshadana waxaa laga dareemi karaa doorka ay ku sameeyeen dhalinyarada wax ku soo baratay dalka Turkiga. marka sharaf gaar ah inoo tahay inaan dalkaas wax ku soo baranno, fursadihiina la sii ka faa'iideysano, isla markaana aan qayb ka noqono xoojinta xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya iyo Turkigu waxay lahaayeen xiriir aad u fac weyn sida taariikhda iyo aasaartu ay qirayso. xilliganna wuxuu Turkigu aad u danaynayaa kuna guuleystay ilaa xad xeeladaha dhaqaale ee qaaradda Afrika. maadaama dowladda Turkigu ay rabto ganacsigeeda iyo warshadaheeda inay ku baahiso Afrika, oo qorshahaasi ugu jiro qorshayaasha dhaqaale ee istiraatiijiga ah, Soomaalidu halka fursad weyn bay ka heli kartaa maadaama ganacsiga ay ku fiican tahay. Afrika ay meelo badan joogto oo ay ka ganacsato. Afrika ay dad badan aftaqaano ama ay isku dhaqan yihiin Afrikaan badan. waxaan oran lahaa way iska kaashan karaan Turkida iyo Soomaalidu sida ay Afrika ganacsigooda iyo dhaqaalahooda u gaarsiin lahaayeen. waxaa ah fikrad tisqaad leh in Soomaalidu ay hogaaminayso isdhexgalka dhaqaale ee Afrika iyo Turkiga. Soomaaliya waxay horumarisay nidaam cusub oo u sahlaya maalgashadayaasha shisheeyuhu inay ku soo hirtaan dalka, kaas oo ay hagayso siyaasadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo qeexaya. istiraatiijiyadaas waxaa ku xusan sektarada u baahan maalgashi ajaanib oo degdeg ah oo laga yaabo in maalgashiga gudaha ee Soomaalida uu ka gaabiyay ama aanay tabar dhaqaale oo gaarsiisan aysan u haynin raasmaalkiisa marka la fiiriyo. sektaradaas 10 sektor way guud ahaan, 5 baa waxay noo yihiin priority-ga hore. 5taa waxaa ugu horeeya 3 wax soo saarka ah, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha oo iyagu laf dhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya, GDP-giisana wax weyn ku soo biiriya. waxaa kaloo ahmiyadaha 5taa ugu horeeya noo xiga marka productive sector-ka oo 3daas laga yimaado tamarta iyo bangiyada, nidaamka maaliyadda bangiyada. labada dambe waa labada horseedi karta guusha 3da hore oo productive-ka ah. marka fursadaha hadda jiro oo diyaarka ah oo maalgashatada ajaanibta iyo khaasatan kuwa Turkida ay indhaha ku hayn karaan ama ay maalgashan karaan, faa'iido badan ay ka helayaan wadankana saameyn weyn ay ku yeelanayso. waa labada sektor oo enablers ah ama kaabayaasha ah. mugga ganacsi ee labada dal ayaa gaadhay in ka badan $280 milyan sanadkii tagay ee 2020. shirkado gaar loo leeyahay oo Turkiya ayaa mashaariic ganacsi iyaguna ka wada Muqdisho. tusaale ahaan tan iyo 2013 shirkadda Fafori ayaa maamusha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho. Turkiga ayaana dayactiray oo dhisay terminaalka. si loo hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee labada dal, labada dhinac waxay kala saxiixdeen heshiis lagu maalgelinayo dhulka beeraha ee Soomaaliya. jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Turkiga ayaa maalgashi xoog leh ku sameynaya dalka Turkiga, iyagoo xitaa intay dalal kale ka soo guureen deegaamo ka dhiganaya halka. dadkaasi maalgelin bay ku sameeyeen dalka Turkiga. dukaamay ka furteen, dhakhaatiir bay ka furteen, hoteelay ka furteen, waxay ka furteen iskuulo ganacsi,
waxay ka dhoofiyaan dalka Turkiga alaabaad u tiro badan oo Soomaaliya kaliya uma dhoofiyaan waxay u dhoofiyaan adduunka oo dhan bay u dhoofiyaan magacay doonaan ku dhoofiyeen laakiin Soomaalidu maadaama dad ganacsi ku firfircoon yihiin haddeer waxay ka muuqdaan alaabta dalka Turkiga laga dhoofiyo aad bay uga dhex muuqdaan Soomaalidu waxay kale ku soo kordhisay dalka Turkiga de guriga ka iibsadeen oo way degeen waxay u yimaadaan caafimaad oo dalka Turkiga wuxuu hadda ku biiray wadamada adduunka waxaan loo yaqaan dalxiisayaasha caafimaadka ay u tagaan waxay ku soo kordhiyeen aad bay ugu yimaadaan caafimaadka lacag fara badan baa ay kaga baxda Soomaalida caafimaadka dalkan Turkiga iskuuladay dhigtaan jaamacadahay dhigtaan oo lacag ku bixiyaan ardayda 5,000 gaadhaysa ama ka badan waxa scholarship ku dhigta 600 oo arday inta kale oo dhan jaamacadaha lacag ay ku bixiyaan xiriirka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Turkigu waxa uu keenay inay iskaashi xooggan ka sameeyaan dhanka amniga iyo la dagaalanka argagixisada iskaashiyadaas oo keenay inay Turkigu ay Soomaaliya ka furaan xarun tababar oo lagu horumarinayo tayada ciidanka Soomaaliya September 2017 ayaana xariga laga jaray xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom si loo gaaro higsiga qaranka ee xasilinta dalka weyn ayay kuliyaddaanu ku leedahay jiritaanka dhismaha ciidanka hadda lagu nastay dalkeenu leeyahay qaybta ugu muhiimsan ee ay ka qaateen waxay tahay waxa laga garan karaa maanta ciidankeena doorka uu ka qaatay la dagaalanka argagixisada runtii waa taariikh bal dahab leh waa taariikh aan la inkiri karin waa taariikh ummad u gasho tii ugu wanaagsaneeday marka runta laga hadlo xarunta Turkisom oo ah mid si casri ah loo dhisay lana qorsheynayo inay si baaxad leh u soo saari doonto saraakiil iyo ciidan tayo sare leh waxay dalkeena ku soo kordhisay xirfad iyo tayo aad u heer sareysa dhismaha xaruntan iyo qalabaynteedaba waxa lagu bixiyay malaayiin dollar taasina waxay ka turjumaysaa xiriirka adag ee labada dal u dhaxeeya waxaan u mahadcelinayaa dawladda saaxiibaha nahay waalaha nahay Turkiga sidaad ogtihiin dawladda Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin saaxiibtinimo iyo xiriir dheer oo ka badan boqolaal sano waxaan rajeynayaa insha Allah xiriirkaas inuu sii xoogsado sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socda insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inay noo soo baxaan dhalinyaro 2 sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa daraaruhu kala dhowrasho iyo xasuusa badane 19 bishii 8aad gaar ahaan sanadkii 2011 wuxuu si saxan oo la yaqaano ugu suntay yahay qalbiga ummadda Soomaaliyeed kulkii ay soo gurmadeen walaalahooda Turkiga uu hogaaminayo Erdogan dhacdadaas dhowrsooni maanta way 10 jirsatay ee maxaa la gudboon labada dhan si ay uga wada shaqeeyaan qorshaha iskaashiga saaxiibtinimo ee labada dal waxaan qabaa haddii aynu sii adkayno xiriirkaas in Turkiga iyo Soomaaliya ay noqon doonaan laba dal oo mataana ah oo walaal ah waxyaabo badan kala faa'iida waxyaabo badan kala kororsada waxyaabo badan iska kaashada sida Soomaalidu maanta ay u aamintay Turkiga oo ay u degtay Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka kale oo haddii ay caafimaad rabaan inay u baxaan qof kasta oo kari karaya ama ha noqoto ganacsade ama ha noqoto madaxda ama ha noqoto muwaadiniinta kale ay rabaan inay u tagaan Turkiga halkii meel kale ay u tagi lahaayeen haddii ay rabaan waxbarasho ay door bidayaan inay Turkiga u tagaan iyagoo meelaha kaleba raba inay tagaan haddii ay rabaan iskaashi kale ay rabaan inay ka bilaabaan Turkiga waxay tusaysaa Soomaalidu sida ay u aamintay saaxiib iyo walaal weyn oo u soo kordhay oo ay ku tashan karaan iskuna tashan karaan waxaan leeyahay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ha noolaado xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ha quweysto ha adkaado labada dawladood iyo labada shacabna ha jiraan ha joogaan waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.